guskiisa waa ka soo daashay 5 caruur u soo dhashay nin kale waa helaysa tii dhashay dhahday marka wax la keesa kara maahan wax la keesa kara maahan ceebteeda iyo qof walba ceebteeda dhan balaanka imaanaysa walaa sadohana aqaani walaa walaana aqaani waji ay haysiin maanta ma lahan caruurteeda maadaama soo gaarteen oo naagteeda iyo xubinkiga tarankan soo gaarteen ballan waxay tahay inaan hawadani la galo sunta dooliga caruurteeda dadkii lagu dilaa rabay boorsa lagu waday iyo sixir ay wateen الله إله الماس قروح ذا بدن هاي ذن دافنين nolosha caruurteena ka qaadanayna caruur nasabnimo waa kulaha صفية نين ساهل بكو وصب الهرت عادي يسيل كاغو هولك جوز دقيقة دلادي كو بشوص بحمايشنا يا منولي مانتي ساد دريمو الإله صومالية صومالية انتي ظلمتي إله وساد دريمو يسيكا ترنقول مدو الله فريسيو إن كان الله كوريدو انتي ماركينو مانتا مقحون إلا دونيسي إلهي هكسو إبحي هوستودا وأولادي رو مسكينة أو محل نيجر أما ياب إلميها محاشيك إلميها محاكشيك سبي واي عقا قدودا محا إذا قوة القراء إذا تسي أولادي حتى مد إذا كسو بحا أو قلقلت إذا والا واي قبل من الله موقع قلت أنه حاواي دمبنا رالك ودتين وميسيك ورالك تين صوماليا سان اسكبدلا صوماليا سان حق معها مع الله شهدانكو يالا والله بلا سان حق معها والوضيع الرله naag maxaa lii jiray 100 sano jirto ay dhali karto mid ila eg mid iga weyn mid iga yar kulligiin waxa isku wada raaceen dulmigeyga bal maxaa idinka cunay bal waa kaas ama nolosheeda taqaanigi waxa soo maray mii taqaaneen ani Soomaaliya halis barto caruurta jaamac iyo maxaan ku dhaashan garoon caruurtoodu way haystaan wax qaatay male gacantooday ku jiraan nacala sheedaa ku yaala xaasidnimadiina halkaas iga soo uroosaa halkaas xaasidnimadina iga soo uroosaa garaaca shaashada si fiican u garaaca nacala sheeda kale shaxana la sheer gareeyo sababtoo ah Soomaalidu dulmiga isku hayaan in la ogaado waaye sheer gareeya garaacana shaashada nacala sheedaa ku yaala سيل محاكو دا سحن سارني قصة بريا وما باني ساكا الستيديا lagu soo kalahay gowgo afarna waxay rabeen inay qaarna shakaroon qabtaan qaarna aan ila dagaalaan qaarna caruurtu soo siiyaan marka taleefanka askarta saas u wacay ee arkeen big hore ka ordeen war 4 saacan gurigeena ku abiyusnaa guriga lagu abiyusnaa maanta dhan Soomaaliya tararara aniga inta ay tamaysa anaga wayna kala goyn waayeen ciyaarkaas marka dal ka soo aad inta ay tamaysa Allah sameeyay wax kasta wurdiyo hada doonta dhan way qarxsantaa meel dikir maanta saad بيعب جام ayo waxa oo calaamo Allah ka soo ifiyo oo inta oo niga warqab qosolkayga aragteen waryaa gudayga ma ogtiin qosolkayga aragteen waxa gudaha burkayga gubanay ma ogtiin آمين إلهي علامتنا الله كيفية gurigiina Allah idinka siiyo gabadhan waxa ya rab aska faan oo tagaysan maani deeq way way guriga noogu bisgireenaysan maxay tahay way guriga saddex saac noogu bisgireen si hooyadii abeed waxay dareemayaan maanta arkaysa saqiir waaye مسكين استجا حبيبتي عاد اسكدك وهو قرب تاغنه أباي ساسي إسو أبيوس كريان أوكي ولا عنق لان ديري ونحن حدا شنكروني إلهان كو داري قولada ay laan dheeraha ku sheegaan ay nasabka ku sheegaan ay nacba ku sheegaan ani aad waa ka soo jeednaa wiilkan jaamac waa ka soo jeeda odigaaga okay adiga gabadhaas yar quruxda badan oo aniga aan dhali karaa tahay ilaahan kugu daariye adiga waxa kugu soo dhacay mama dhibaanaad ahayd walaalay masmidgaanaad ahayd إيه كلا صاربل إني أفارق قبيل يكون مرسون والوحى اللي لنا أنا وحاكور عيال مدري أنا حبطنا وتتعامل دونا بيرو يلحق بقصة سمينا بالله وحي وإنا دوك أفتر الجيس إنجارتو بالله يا أحد وحي وتهاي أنت بشان يدل ما يسمان تينا إلى أويانا بالله يا أحد صوبتو حقيقة مركلة تعطو قبلنا Okay. Thank you Esther let's support each other because nasty people are plenty in this earth, okay? We have to protect, okay? We have to protect ourselves and our maxaankudaha dhalinyaradeena waa inaan support garayna taas waa iga go'an tahay ay dhalinyaraha idinkugu imaado isjecel awlaad yaryar haysto okay intaasaa idinku jeclaada saa isu jeceshihiin
naag walbo Somaliland dheer sheego ama laangaab sheego dhila yahay waxa aad rabto waxay tahay meeqa maalin ku hayaan askara soo socoto carruurtu waa la qaatay taa waa la qaatay isaana la sameeyey maanta maxay noqotay in gurigeena lagu abuse gareeyo in gurigeena lagu imaado in carruurta guriga lagu dhex dilo dulaystayaasha gaarto maxaa la dhihi jiray shaashadana garaaca sheerna dhaha oday iyo habar baa isku imaadaan way ogyihiin waxay ku sameeyeen ciyaalkooda wayna isku wada ogol yihiin waa dulmiga way isku raacaan Soomaali haddii xaqiiqda laga sheego ilaahay kama baqaan qabiil ka baqaan ilaahay kama baqaan dadka bilaadanka iska gadaan laakiin aniga waxa kaliya ugu duwanaa waxay tahay anoo gabar yar oo 30 sano wali gaarin oo codkar ah oo markinu diinteeda ku dhagan oo ciyaalkeeda jecel oo baan kulisata ahayn oo nin xalaal guri xalaal la gashay 15 sano ka hor waraa cimrigeyga waa aragteen waraa wajigeyga soo weegahay wariya sadun ma gaari Soomaaliya intaas ku ka tagtiin oo fiidiyoyaasha wareejisin kilib yar inta qabsatiin oo markino dulmiga wixii oo dhan u dul qaadan aad ka aamusnay oo idinka calaal goosano islaan Soomaali dhanka go'a haddana gurigeyga maanta la imaado gurigeyga ee maraysa maanta in la isku soo weeraro gurigeyga nacla sheedan ku yaale wariya goormaad baraarugaysiin oo kiciyasiin war goormaa wax ogaanaysiin war goormaa dulmiga la isku hayo guryaha hoostooda ogaanaysiin war goormaa ogaanaysiin Soomaali community haters ay u yihiin war hooy Soomaaliya idinka isnacab idinka isximiya idinka isixra idinka dadka gaaleeya idinka maanta waxay la rabteen gurmado inay fariisisiin oo waxay la rabteen maxaa la dhihi jiray ilaahay laakiin qaluubteeda daacad u la socda waxay la rabteen gurmado inta ay fariisisiin oo ma arkino aan waashto oo gaala aan noqdo diinti ku xanaaqo ku baxo laakiin iimaana ilaahay siiye waa isceliye waa acuudu billahi meesha fadhiya ka kacay oo maxaa la dhihi jiray waxyaabo dhan aan laqay ciilkeyga aan laqay haddana waxaa way maanta in gurigeyga liigu soo weeraro Soomaaliya marka fadhi ma yaalo wallahi oo billahi oo tallahi haddaana waxaan gacan biran iskaga qabanin haddaana taabuuga laga soo horjeesanin wallahi waa ku baaba'aysiin waryaa meeqa tareen isku dhigtay maxaa la dhahaa jarmalka meeqa naagi meeqa nin isdileen maya saan waa dhulkeena uu baaba'ay afkaasa ka wada leedihiin haddana waxaa rabtiin ubixiina soo baxaayay inay haddana saas u kala tuurtiin war jecel xaasidaa tihiin war waxaa tihiin awlaadiina qof haysta ma arki kartiin oo ma arki kartiin qof yaro codkaro geesi ah qof yaro codkaro geesi markay arkaan Soomaali waa aragta madaxay cagta ka saaraan oo intaas oo magacay u bixiyaan stop please intaas oo magacay u bixiyaan oo waxay u bixiyaan maxaa la dhihi jiray you guys please go to that room thank you sadre ma caadi ma maanta go to your room please TV gina daawada thank you go to TV okay I'll get you war waa la aamusan yahay war iimaankii diinta wali la xasuustaa war haddaan dun xunnahay mar hore bikini iyo baalkii tisqaawin ayaa ka baqaynaa dhul firiya joognaa la ogolyahay wax walbo mar hore intaa isqaawina filmaan ma arkin oo waxaan noqon lahaa jidkayga gadgadan lahaa asagana sidoo kaleeto si wuxuu rabuu samayn lahaa laakiin ilaahaygiina abuurtay iimaanna siiyey sababtoo ah qofka dun xun markuu yahay waxaa lagu gartaa lafahaaga fiiri waxaa la dhahay waana abuurisa ku horeysay lafahayga haddee xun yahay hadba nina isku soo sawiraa sida naagaha maxaa dhihi jira social media ka buuxo oo afaar qabiilka aad ku wada taageeraysid oo duqyaasha ah oo qaar maakin oo ileegiin qaarna iga yaryihiin waryaa haddii qof xun aniga ahay oo maakin oo dunteedan ilaahay ugu sameeyay aan xumahay mar hore wax kasta samayn lahaa okay laakiin qofka markuu codkar yahay oo gudaha ka gubanayo oo aamus la leeyahay 4 saac ما دريميسين واحد قديش كجرو وابوبونينيسين على النمو هل قفا wax soo qaadana inta kala dhan way israacayaan war ma waqtiga qofka wuxuu ku nool yahay ma waqtiga qofku bilaadan wuxuu ku nool yahay warkiis wax ka gubanay ma waqtiga wuxuu soo maray ma waqtigiin waa maya warya mid ku jira qof oo 15 sano soo jiro guur xalaal ko marka wax iska dareemay guur xalaalan dalaq dhahay iyo jaceelkii igu horeeyaa jeclaaday warya waay lacag ugu xiri waaya u dooran waay warya waaya maxaa la dhigi jiray qabiil iyo balaayo u raadsan waay warya maxay taa warya waayga Soomaalida halka qof ka wada dhigay oo nacalada dhashay oo abuse-ka isku wada imaadaan oo dadka bahdilaan maalin walba waxa la dhahay qof ay isdilay hooyaa saan ugu sameeyay idinka ku sameeyeen
hooyo ilmihii laga qaatay war u gurmada been adaa shala dacweysay adaa waxaa laga yaabaa nolol fiican inay ku jirto ninkeeda u quuri weysay carruurteeda inay jeceshay daacad tahay ee saalkuliisata eena u quuri weysay inay maxaa la dhihi jiro diinteeda ku dhegantaa u quuri weysay maalin waxay maarkin oo ku aragta naag dhiig leh oo maarkin codkar ah oo geesiyad ah oo maxaa la dhihi jira wax kastoo ka hor imaadaba u face garaynaysa oo haddana maxaa la dhihi jira iimaankeeda iyo sabarkeedana wadato warya in afka liidin furta ma ogiye wax ma dareentiin miyaa soomaaliya war maxaa qaldan nac allah shaydaan ku yaal idinka soomaali horta mar wallahi waa xataa waa shalaa ilaahu maxaa soomaali iga dhashay maanta haddaa qof kale ka dhalanaa jaaliyad kale ka dhalanaa war rabbu kacba waxaa noqon laha qofka ugu sarreey because aniga codkara ahay naag geesiyada ahay aan baqin naag waxaa ahay sabab badan naag waxaa ahay dulqaad badan oo ilkaha isku dhuuqsata markay wax soo wajahaan waryaa anoo social media soo fariisanaya ooyahay miyay aragteen one day anoo cabaadaya calacalaa miyay aragteen waryaa qosolkaygaas aragtiin waxa gudaha ku jira moogtiin waxaa soo maray moogtihiin waa maya salan waaye qof walba wax kasta sameey waryaa ayuu duqyaala oo konton jiri 60 jira ee qamro ku cabaan meesha qabiil ahaan ugu dhexda ugu xiratiin waxay rabaan kasbuumoyne soo gashtaan waxay rabaan samee anoo maaragtay Soomaalidooda caawin oo isdhahay oo stresskan iskaga baabi'iyo oo la sheekayso ilaa waxaa la joogaa qurbe inta idin weheshada sida bahalada iyo cunteed saas waryaa anoo maaragtay jirkayga ma arkin oo siilkayga ma aragteen wiligiin anoo ninka la tumanay ma aragteen anoo meel la taagan ma aragteen waa maya Soomaaliya haddii runta la sheego idinka duumiga dhan number 1 idinka ah ilaahayna kama baqdin iyo rasuulkiisa guskiisa waa ka soo daashay 5 carruur u soo dhashay nin kale waa helaysa tii dhashay dhahday marka wax la keesa kara maahan ceebteeda iyo qof walba ceebteeda dhan balaanka imaanaysa walaa subahan aqaani walaana aqaani waji ay haysiin maanta ma lahan carruurteeda maadaama soo gaarteen oo naagteeda iyo xubinkiga tarankan ay soo gaarteen ballan waxay tahay inaan hawadani la galo ballan waay sicirkiin wax wada tiri waay hadda waxay socotaa inaan gurigayga ugu maatiin oo gurigayga waa abuse garaysiin ma xishood waa dhaaftay xishood waa dhaaftay naya guskan waa ka soo daashay guskala waad helaysaa oo nasab ah adima u baahan ma leeyahay shakro marka habartayninka aad ma ka helma dhahdi habartayninka aad ma ka helad ma wada sixir wadataa waxay fadhinayaan mar walba shakro ya shakro ay taagayso hadal awood ku hadasho ma lahan hooyada dhasha sixir ku sameynayso wallahi she did mine she did waa muslim ma amusna karno ma carruurtana sixir inaan ku dhibna oo ogolaanina marka may inta ma amusna karno inta ka bacna sixir wax ka fiican wadataa جعل رنا ودا شنكرون سحر wax ma ka taray jacayl adii wadana shankaroon si walba la soo maray nin walba laga soo galay inaan kala goono waa la waayay marka hadda maxay ku kala gooy karaan carruurta ku kala gooy karaan waay tilkiina ayaa idinka garoon shakroon ayaa ka garoon oo aabood uga roon dadki adiga ku quuri waay guskaagaas ilmahaaga maxay u quureen isheeg ay wallahi inaa wax ku quureen naagta inta waa samaroon mugtahay oo balaakay ku soo dhigaya wallahi shankaroon is ilaali qoyskaada hooyadaadi aabahaadi waxa siitay dhan u jeedid waxa waa carruurtaada ininkaada ya lul wax sixrano waa kaasa ma jeeda lul walaasha way magac kale wadataa caasha waalidiin abrashar muutooyna jiro oo saaxiriin oo dhilooyin wardkiina wase farxiya cabsi meesha ka socota samaroon ka socotaa تي قولي فرحان لي وعلى قاعد الحمد لله عرفت انه يجيس هذلوين عرفت انه يجوغان وراح يسنوا يا لكن وحان دحي وحا بلانكو قاداي عافيماد انا ويلغينا هلين بيكوز شاله markay kaamada shankaroon hayso ya kaamada shankaroon ay dhigay salmar iyaga naftikoodan taagayna sixirtu sixra la isla horkeen ay dawlad aad anigu dhaaf sixirkooda haday isdhaaf u jabi waayaan oo xaarka xafaayad looga qaadi waay meesha ka taabta iska dhaqaaw ma sameeyay ayaan wada sixraay ايوه harkooda ha cunaanay nacla dhashay maxay ka rabaa aniga waxaan rabaa xaarkooda ayagu cunayeen xaarkooda ayagu cunaya arkaan rabaa wax kale ma rabaan taag ayaan walaa ajraa waxaan iga rabtay malaha aniga waalay shaqada iga fadhiisiyay inay cadeen rabtay war aniga waxaan ku raanoo isnacay
ayada haddana isoo garab qabatay wallahi inaa been kuu I sheegay know I know ka caydaada bacoor gaariyan qaado deena ii gashay lacag intaas lacag ii soo qaaday boqol kun oo lacag gacanta iiga saartay waxay dhahday orda soco shaqeey ayada iskale hore kale lacagteeda boqol kun oo kontigeeda ka soo hooyo oo saasi ma jirta horta hooyo adduunka saasi ma jirtay hooyo ma jirta waa masiibatan ilaahay daba dhig waa masiibo ilaahay daba dhig caafimaad darro allah dhigo waxa daba joog ilmaha iyo siyaasada kala ilaahay ha soo hanuuniyo jidka toosan waa kululaanay gurigeena hadda lagu soo ataagaraynaya war naftii aan la yaabanahay shooshibidii hadda gurigeena lagu soo ataagaraynaya ilaahay ka cabsanayno iimaanka oo dhan laga qaaday subxaan allah hal mar wada kaadiya kulligeen hoos idin wada dhigaa shukran ay labadiin la hadlo okay advice-ka markii la gaaro waa idin soo qabana waa idin soo celinaa ay hadal kusbuuq uu isku badanaa ayay waa anaga naftaan oo imaatay ayay wallahi bilaa shalay shukran waxay taagan waa isdilaa aniga ilaa hadda madaxa xanuunaya aniga go'aan waxaa ku gaaray mataqaanaa shalay markay ii imaadeen dadkan sicirka wataan oo guriga ii imaadeen ilaahay amarkiisa cunugta mar walba lagu diraa arinta meesha laga soo galaba cunugta lagu diraa cunugta u kaca aniga madaxa geesna xanuunay garab dhan inuu jaban yahay u maleynay caruurti waa nacnay gurigeena time ma gelinayno shaqadii maanta aadi lahayd xitaa ma aadin buuqa u fuulay shaqo I know shaqada ma yawaaba maanta waxa waa ina aadeed waxa waa shaqo yar waxay tan soo qabto xataa waxa waa ka waasaday ma wacin xitaa yaarigu iska bagarisi war haada familkan maxay galabsadeen dhibaatadaana ka harayso mo dad adoo hurda wuxuu ku yiri anoo jiifo qaawana qofka la igu soo galo ku dhamaa kugu dhacay wallahi waa mucjiso inteeda la eg maxamed madada u soo galay ha familkii oo gabadhaas soo galaya ninkii qaawan gabadhi waatana soo guuraanaana irida hore idin istaagay shankaroon hooyadeed oo 7 naag oo 4 naag wadato xala timiday shankaroon hooyadeeda imaatay ha inaaga kaleeto ninkaan ka soo tagaa leey ilmaha naga ku hayneen bal hooy aab ilmahooda haysto ilmahana ku hayneen leey inta ku aragtay maama sadexda maxay rabtaa marka waa ninkaanay diidan tahay maadaama gabadha qabiilkeeda sheegtay qabiilkii maadaama koray hadda u sheegtay awal iyadoo loo diidanaa oo inta sixir laga daba waday oo la leeyahay sixirku asagoo kugu sameeyay kaamirad waxaa jirto lagu xiro mataqaanaa albaabka barnaamijka ugu horeeya maaragtay sayd wooga xataa hadduu qofka soo galo uu arkaayo kaamirad extra kaamiro ku xir ku dheh shaqadaadan iyo kaa baaqanina aad shaqada booliiskana gabadhiyaa la kala wareejiyaa lagu leeyahay uga tagaa gabadhii ilmihii gabadhiyaa xanuunsan lagu dhahooyo madaxay xaal iska reeftay أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله المهم واي قصبيها مركا المهم gabadhi فيري gabadha xataa ma intay rabaan marka فيري dhageystaha waa iska diibaayay tiraalahan ka badan ma survive garayn karo this is from day one this is down to qabiil it's not just waxa hadda bilowday laakiin hadda waxay heleen wax dawladda ay ula tegi karaan but there's nothing to go the dawladda ula tegi karta videoga waa haysataa go to the dawladda maxay tahay brand community sidoo maxaa ku dhashay ayaana waxaas wax ka fiican ay sameyn karaan gobolka ay degan yihiin waxay sameynayaan gobol kale u guurayaan ma fahantaade habarta soo gaari karin lugaha ka jajabtay habarta ma soo gaari karta mogtaa meel habarta 2 saac u jirta 3 saac u guuraan أنا 6 ساعة وجرا يك 6 ساعة وجرا نجي سودا أكتر وجورو كده وأنا فيري مقالة أنا سو جورا طلبنا أبا فيري هرتا إن هرتا لدقال أنتي دوا عدو جاجا if you say هدانا لدقال من ويكدلنا يعني سومالي دان كلال أي واحد كليهين مي فهمتين مركان وحندي لا جوريجا everywhere كحرة كاميرا حتى سحرك حتى دي لكينا حتى سلو أركو جاري كاميرا كحرة وصلنا قناعين ونوصل سوق شقينا ويلكو أكاديمية وأكاديمية ما جوري دم ساعدو جوري كان بسمها باي جوري دم وشرحان ألابتيسو أي كسو عررين والله ومقلة ودقيسنا شيكات مركي كشيكيناين مالك ومركي صدحات شنكرون أي محي ترد هذا إن أنت إيران هبي إيمان سانا سحرك لو وذا ويل كان لو جيتين because of قبيل هذا وحوارك لو سو قابلين قبيل واحد
gabadhaas ilaa ay ka dhimatana ma laga haraayo qabiil waay nacalla maya dhale waa laga hara ayaane waa laga harayaayo gobolka ay soo degantaa u guuraan gobolka soo qabo waa raraynaa iyaga dhanaa la raraayo soo qabaayo hala soo raro walaa ana aqaan Soomaali loola dagaalamay aniga yes habarta 6 saac baawur bay drive gareyn kartaa aniga buuqa markay iga badiyaan waa ka guura gobolka la degaya barafkaas ay ku dhimanayba inta soo socotee ka guur ku dhimeesha dhanka guur dheh waa loo gooyaa soo guura walaahi soo qabo balanaaka degaya walaa Soomaalidan ما soo qabsanaa ha abay 2 minutes wax ka dhameesha tan waxa saaran wallahi billahi mucjisa ayaanay waxa u soo koray ayaanay saado hal mar dhageysta gabadha xalay oo firdinaysa ku jirto meesha isoo qabay ku dhowsta saasa u soo koray soo qabo ayaan rasuulkan alayhi salaam wuxuu dhahay meesha ku dhibtootid waa laga haajiraa intaan gobolka dhanaa ka guuraan gobolka la degaan ma fahanti okay laakiin abay waa gurigii labaad miyaamskii saddexaad that's okay because dhibaatadaana ka haraysa moo dad adoo hurda wuxuu ku yidhi anoo jiifo qaawana qolka la igu soo galo ku dhaa maxaa kugu dhacay wallahi waa mucjisa inteeda la eg maxamed madada u soo galay familkii oo gabadhaas soo galaya ninkii oo qaawan gabadhi waatana soo guura anaana irida hore idin istaagay shankaroon hooyadeed oo 7 naag oo 4 naag wadato xala timiday shankaroon hooyadeeda imaatay ee naaga kaleeto ninkaan ka soo tagaa leey ilmaha naga ku haynayno hooy aab ilmahooda haysto ilmaha ku haynayno leey inta ku aragtay maama sadahda maxay rabtaa marka waa ninkaan ay diidan tahay maadaama gabadha qabiilkeeda sheegtay qabiilkii maadaama koray hadda u sheegtay awal iyadoo loo diidanaa oo intaa sixir laga daba waday oo la leeyahay sixirku asagoo kugu samaystaa lagaa furaa ma la dhahaayo mida adiga maxay ahayd toolo oo lagaaga wadaayo ma ah miduu asagoo kugu haysta war asaga sixir uguma haysto waa jacayl anaa jeclaaday anaa rabo may kaale ka dhigaysaba adi maxaa laga rabaa bagdad nasab waa walaale waa la guursadaa dadkana dhibaatada way iska fara badan yihiin daashay inta life to life shala saas loo dhahay guskiisa waa ka soo daashay 5 caruur u soo dhashay nin kale waa helaysa tii dhashay dhahday waa imarka iibaa ku sakeelaysa ninkaan tu fiicay marka wax la keesa kara ma ceebteeda iyo qof walba ceebteeda dhan balaanka imaanaysa walaa sabahan aqaani walaa walaana aqaani waji ay haysiin maanta ma lahan caruurteeda maadaama soo gaarteen oo naagteeda iyo xubinkiga tarankan soo gaarteen ballan waxay tahay inaan hawadani la galo ballan waay sixirkiina waxa uu tiri waay hadda waxay socotaa inaan gurigayga ugu maatiin oo gurigayga u abuse garaysiin ma xishood waa dhaaftatan تحشد وادافت وادافتي نايا غسكن waa ka soo daashay غسكن waad helaysaa oo nasab ah adima u baahan ma leeyahay shakro marka abartayninka aad ma ka helma dhahdi abartayninka aad ma ka helad ma wada jooga kar sixir wadataa waxay fadhinay mar shakron ya shakron ay taagayso hada awood ku hadasho ma lahan hooyada dasha sixir ku sameynayso wallahi shidid she did mine she did مسلم ما مسنا كرو مع عروتنا السحر انا كل ما اوغلانينا marka may inta ma مسنا كرو inta ka bacna sixir wax ka fiican wadataa sixir wax ka fiican wadataa jacayl runa wadataa shankaroon sixir wax ma ka taray jacayl adii wadana shankaroon si walba wala soo maray nin walba laga soo galay inaan kala goono waa la waayay marka hadda maxay ku kala gooy karaan caruurti ku kala gooy karaan waay tilkiina ayaa idinka garoon shakroona yaa kaaga roon oo aabood uga roon dadki adiga ku quuri waayo guskaagaas ilmahaaga maxay u quureen isheeg aaya wallahi inaa wax ku quureen balaankay ku soo dhigayaan wallahi shankaroon yaa is ilaali qoyskaada hooyadaadii aabbahaadii waxaasaytay oo dhan ujeedid waxaa waa caruurtaada ininkaada yaa لول wax sixrano waa kaasa ma jeeda lul walaasha way magac kale wadataa aasha waalidiin abrashar muutooyna jiro oo saaxiriin oo dhilooyin ah wardkiina wase farxiya cabsi meesha ka socota samaroone ka socota
تي قولي فرحان لي ولا قاد الحمد لله عرتنا ويجيس هذلوين عرتنا ويجوجان وراحيسنو يا لكن waxaan dhahay waxa ballan ku qaaday caafimaad aan wiligiina helin because shalay markay kaamada shankaroon haysan ya kaamada shankaroon ay dhigay salmar iyaga naftikoodan taagayna sixirtu sixir la isla horkeen ay dawlad aad anigu dhaaf sixirkooda haday isdhaaf u jabi waayaan oo xaarka xafaayad looga qaadi waayo meesha ka taabta iska dhaqaaw ma sameeyay wallahi wada sixraay ayo جن أجري هاركوda ha cunaanay nacla dhashay maxay ka rabaa aniga waxaan rabaa xaarkooda ay cunayaan xaarkooda ay cunayaan arkan rabaa wax kale ma rabaan tag ay ayaan walaa ajraa waxa laga rabta malaha aniga waalay shaqada aniga fadhiisay in acday rabtay war aniga waxaan ku raano isnacay ayada hadan soo garab qabatay wallahi inaan been ku sheegay ka ayada bacor gaariyan qaado deena ii gashay lacag intaas lacag ay soo qaaday boqol kun lacag gacanta iga saartay waxay leedahay orda soo shaqay ayada iska leedahay kala lacagteeda boqol kun oo ka soo saasi ma jirtaa horta oo adduunka saasi ma jirtay هي ما جرت ومصيبة إلهي دبدك ومصيبة إلهي دبدك عافما در الله دبدك واحد دبدك إلهي سهل جدك توصل إلهي ورما gurigeena hadda lagu soo ataagreenooya war naftii alla yaabanahay social-media hadda gurigeena lagu soo ataagreenooya ilaahay ka cabsanayno iimaanka oo dhan laga qaaday subxaanallah hal mar wada kaadi u kaadiya kulligiin hoos idin wada dhiga shukran ay labadiin la hadlo okay advice markii la gaaro idin soo qabana waa idin soo celina ay hadal kusbuuq isku badana hatii ay waa ana naftaan oo imaatay ay wallahi bilaa shalay shukran waxay taagan waa isdilaa aniga ilaa hadda madaxa xanuunay aniga go'aan waxa ku gaaray ma taqaana shalay markay ii imaadeen dadkan sicirka wataan oo guriga ii imaadeen ilaahay amarkiisa cunugta mar walba lagu diraa arinta meesha laga soo galaba cunugta lagu diraa cunugta u kaca aniga madaxa geesna xanuunay garab dhan inuu jaban yahay u maleynay caruurtu waa nacnay gurigeena time gelino shaqadii maanta aadi lahayd xitaa ma aadin buuqa u fuulay shaqo I know shaqada ma yaaba maanta waxa waa ina aadeed waxa waa shaqo yar waxay tan soo qabto xataa waxa waa ka waasaday ma wacin xitaa yaarigu iska bagarisi amirad waxa jirto lagu xiro ma taqaana albaabka barnaamijka ugu horeeyay maartay sayd wooga xataa dad qofka soo galo oo arkayo kaamirad extra kaamira ku xir ku dheh shaqadaadan iyo ka baqanin aad shaqada booliiska gabadhii la kala wareejiyaa lagu leeyahay uga tagaa gabadhii ilmihii ha gabadhii xanuunsan lagu dhahoyo madaxa xal iska reeftay أعوذ بالله ilmihii waa ku qasbaya marka intaas fiiri gabadha xataa waa intay rabaan marka fiiri dhageysta waa iska diibaayay tiraalaan ka badan ma survive garayn karo maxay tahay brand community sidoo maxaa ku dhashay ayaana waxaas wax ka fiican ay sameyn karaan gobolka ay degan yihiin waxay sameynayaan gobol kale u guurayaan ma fahantaade habarta soo gaari karin lugaha ka jajabtay habarta ma soo gaari karto mogtaa meel habarta 2 saac u jirta 3 saac u guuraan أنا لح ساعة وجرايك لح ساعة وجرا أنا يا سود أكيد وجورو كده وأنا دوغان فيري مقالة أنا سو جورا طلبنا أبا فيري هرتا وحا هرتا إن هرتا لدقال أنتي دوا عدوغاغا if you say هدانا لدقال من ويكودلنا يعني سومالي دان كلال أي وح كليهين مي فهمتين مركان وحندي لا جوريجا everywhere كحرة كاميرا حتى سحرك حتى دي لكينا حتى سلو أركو جاري كاميرا كحرة وصون قناعين ونوصل سوق شقينا ويلكو أكديدين وأكديدين ما جوري دم ساعدو جوري كان بسمها باي جوري دم وشرحان ألابتيسو أي كسو عرين ها والله ومقلة مرك ودقيسنا شيكات مرك كشيكيناين مالك ومركي صدحات شنكرون أي محيط هذا إن أنت إيران هبي إيمان سانا سحر كلو وذا ويل كان لو جيتين because of قبيل هذا وحوارك لو سوق قابين قبيل واي قبل ناس إلا يكلم تنا ملقى هراي قبيل واي نعلا ما والقى هرا أياني والقى هرا يا نكالا يعني يسوق أنا أخان سيد الصومالي لولا سوقبو
واررنا أيق دنا على الرأي سوق نعلطة هلا صار ولا أنا أقول الصومالي لولا دقال أنا يا سافرت اللحسة باور بدري فكرين كرت أنا بوك مركي يقبض يا وكجورا قبل كلا دقايا برف كاسة بكل ما نبي أنت زوج عته كجور كده ماشي ده كجور ده يا ولا كسو جورا والله ما سوق بسنة ها أباي 2 minutes وحكده ماشية وحسان والله بالله معجزة ayaanay waxa u soo koray ayaanay saado hal mar ay dhageysta gabadha xalay oo firdinaysa ku jirta meesha isoo qabay ku dhowsta saasa u soo koray soo qabo ayaan rasuulkan alayhi salaam wuxuu dhahay meesha ku dhibtootid waa laga haajiraa intaan gobolka dhan ka guuraan gobolka la degaan ma fahanti okay laakiin abay waa gurigii labaad miya maskii saddexaad dhibaatadaana ka haraysa moo dad adoo hurda wuxuu ku yiri anoo jiifo qaawana qolka la igu soo galo ku dhac maxaa kugu dhacay wallahi waa mucjisa inteeda la eg maxamed madada u soo galay familkii oo gabadhaas soo galaya ninkii qaawan gabadhi waatana soo guuraanaana irida hore idin istaagay shankaroon hooyadeed oo 7 naag oo 4 naag wadato xala timiday shankaroon hooyadeeda imaatay naaga kaleeto ninkaan ka soo tagaa leeyahay ilmaha naga ku haynayno bal hooy aab ilmahooda haysto ilmahana ku haynayno leeyahay inta ku aragtay maama sadahda maxay rabtaa marka waa ninkaanay diidan tahay maadaama gabadha qabiilkeeda sheegtay qabiilkii maadaama koray hadda u sheegtay awal iyadoo loo diidanaa oo intaa sixir laga daba waday oo la leeyahay sixirku asagoo kugu samaystaa lagaa furaa ma la dhahaayo mida adiga maxay ahayd toolo oo lagaaga wadaayo ma ah miduu asagoo kugu haysta war asaga sixir uguma haysto waa jacayl anaa jeclaada anaa rabo may kaale ka dhigaysaba adi